barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, bulshooyinka aadanaha oo idil sida ka dhex dhacda soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay soo martay dagaallo markii waa la joogaba ka dhex aloosmi jiray. waxay ahaayeen dagaallo ay tolalku isaga hor iman jireen oo guud ahaan loo geli jiray hanashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen. dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan. dhinacyadii ay diriirtu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu cadowgu ka laayay. haddii laga golroonaado kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka run sheegaan. isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u huray abaalkiisa ma bi'iyaanoo ma duudsiyaane way u baroortaan, xusuustooda ayay ku waariyaan. ha yeeshee dhaqanka dagaalka ee soomaalidu sidaas kuma tilmaana. haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qarto. qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u oggolaado. tiro kasta oo rag ah haba laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo. goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireene dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey. carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay guushii laga helay in tolku uu isagu isa siiyo, qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo. dhinaca kale dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheegga magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo. cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato, taallo lagu xusuusto looma dhiso. hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo. aaskiisa kadibna billado abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo. waxayna ku maamaahi jireen nin dhintay kabihiisa ayaa dhaama. sidaas awgeed waxaa maansada soomaalida aada ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarrada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii galangalacow iyo geeri uu colkoodii mutay. iyada oo taasi ay dhab tahay ayaa haddana waxaa jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobo hoog oo ay ku jireen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey. geeraarka waxaa mariyey qaajo balas nin la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo qoran jiray jabinta daraawiishtii sayid maxamed cabdilla xasan. aanse idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiishtu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magac dheeri ay ahaayeen afbakayle, fardhidin iyo beerdhiga. taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jananadii ingiriiska ee london fadhiyey iyo saraakiishoodii berbere u joogtay dirkaba. maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaysan jireen. dabadeed siday iyaguba qoreen oo qireenna waxay isu keeneen imbaraadoriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa. marka buuxa oo ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran yihiin ayay hobyo ka soo dejiyeen. gaasas kale oo laga soo dhuray england, hindiya iyo afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen. boqor mililigii labaadna guuto camaariyaley ah ayuu isna jigjiga ka soo diray. intaa ka sokow geyiga soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex gala. nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda. waxaa loogu sheekeeyey daraawiisho inay tabar daraatay, inaysan firdo fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli doono. markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kelimo geel ah iyo hanti kii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. qorshaha howlgalka ciidanka ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo.
in lagaga duulo koonfur galbeed iyo waqooyi si waddooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xidho mase noqon tare u meel martaye way mala habaabeen daraawiishi qorshahaas way ogeyd maantaas goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu ingiriisku meel kastaba ka keenay waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen waxay halkaa nabadqab kaga laabtay gabay carabi ah oo guulkufaana ayuu sayidku maantaa mariyey waa gabaygii uu ku jiray meeliskii ahaa wa amwaatunaa min khayri ahli lmaqaabiri wa axyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri qaajo maxamed ciise oo qaajo balas lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu hoday geel jacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaa lagu laayay ciidise aanay tirsanayn wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareentaabad kale wuxuu yidhi raxanraadkiiyo hawsha kamaan raalli ahaynee rag baas bay damciyey rabbina weyla iraaday geel baana raadi lahaa waxba yaan rimaydiisiiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbi oo mahadda hindigaa ridi doona soodaantaa rogi doonta yamyamkaan rinjinjiirsan rag cad baynu u geynoo reebi baynu ahaanoo ruqo weeye farduuyo rasaastoodu ma fiicno oo rabbigay talin maayee rugtoodaynu galaayo minba reer ha kaxaysto soo wixiina hor rooraye raggii ay qoranaysiiyo roge gaalada maahabu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno